bal qiyaas habeen madow oo dhaxan aad u daran iyo dabaylo baraf wata ay si aad ah ugu dhacayaan wejigaaga. Waxaad ku dhex jirtaa bartamaha buuraha dhaadheer ee cidlada ah, meel ka baxsan ilbaxnimada, halkaas oo codka keliya la maqlayo uu yahay guuxa dabaysha dhex maraysa geedaha barafka qariyay. Tani maahan sheeko khiyaali ah, waa xaqiiqadii ugu dambeysay ee ay wajaheen 9 dhalinyaro ah oo bishii Febraayo ee sanadkii 1959 safar ku galay buuraha ku yaala dalka Ruushka. Sheekadan aynu maanta eegi doono oo loo yaqaano dhacdadii Dyatlov waa mid ka mid ah siraha iyo dhacdooyinka ugu waaweyn ee qarnigii 20aad ilaa maanta xalka loo la'yahay. Waa sheeko isugu jirta cabsi, dhimasho la yaab leh, iyo baaritaano xambaarsan su'aalo aad u badan oo jawaabaha ay bixiyeen ay ka badan yihiin su'aalaha ka yimid. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Kooxdan safar ka gashay waxay ahaayeen 10 qof, waxay ka koobnaayeen arday iyo dad soo dhameeyay macaahida farsamada ee dalka Ruushka. Waxaa hogaaminayay wiil 23 jir ah oo lagu magacaabi jiray Igor Dyatlov, wuxuuna ahaa khabiir ku takhasusay fuulitaanka buuraha dhaadheer iyo maareynta cimilada qabow. Ujeedadoodu waxay ahayd Mountain. Jidka ay doorteen xilligaas jiilaalka ah waa qaybta saddexaad oo ah heerka ugu adag ee safarada noocaasi ah. Laakiin sug, halkee bay sii marayeen? Buurta ay dhex marayeen ee shilku ku qabsaday waxay dadka deegaanka ay u yaqaaneen buurta meydadka. Magacaas oo keliya ayaa baxambaarsan cabsi iyo dareen ah in meeshani aanay ahayn meel si sahlan loogu noolaan karo. Safarkoodii wuxuu ku bilowday farxad iyo hees ay ku qaadayeen tareenka iyo baabuurtii ay raaceen. 10kii qof ee baxay, hal qof oo keliya ayaa ka badbaaday musiibadan. Ninkaas waa Yuri Yudin. Markii ay safarkii lugta ah sii bilaabeen 28kii Janaayo, waxaa qabtay xanuun dhanka neerfaha lugta ah iyo kala goosyada. Tani waxay ku qasabtay inuu dib u noqdo. Ma uusan ogeyn in xanuunkaas uu ahaa fariin badbaadisay noloshiisa. 9kii kaleeto waxay sii wateen safarkoodii iyagoo u gudbay dhanka buurta cidlada ah. Maxaa ku dhacay 9kii qof? Waa maxay awoodda qarsoon ee ku qasabtay inay teendhadoodii, dharkoodii qabowga iyo kabahoodii uga cararaan habeen qabowgiisu gaarayo ilaa 30 digrii? Bal aynu si qoto dheer ah u eegno dhacdadani. Taariikhdu markii ay ahayd 1 Febraayo sanadkii 1959, kooxdu waxay gaartay marinkii buurta ee loo yaqaanay buurtii dhimashada. Qorshahoodu wuxuu ahaa inay ka gudbaan marinkaas, balse cimiladii ayaa si degdeg ah isku beddeshay. Dabaylo xooggan iyo baraf xad dhaaf ah ayaa aragga qariyay. Igor Dyatlov wuxuu qaatay wuxuu go'aansaday inay teendhada ka dhistaan buurta qayb ka mid ah oo ay xilligaasi timarayeen halkii ay hoos u dhaadhici lahaayeen. Keynta oo ahayd meel dabaysha ka xiran kana fog 1.5 kiiloomitir. Sababta waxaa lagu macneeyay in uusan doonaynin inuu lumiyo fogaantii ama jooggii ay soo koreen. Nasiib darro, go'aankaasi wuxuu noqday kii ugu dambeeyay ee noloshooda qaateen. Markii la dhaafay taariikhdii la sugayay ee 12kii Febraayo, iyagoo aan wax war ah laga haynin, waxaa 20kii Febraayo bilowday baaritaan ballaaran. Ugu dambeyntii 26kii Febraayo, kooxdii baaritaanka waday ayaa heshay teendhadii. Waxay ahayd mid burbursan oo baraf ka kala barqariyay. Laakiin markii baarayaashu ay si fiican u eegeen, waxay ogaadeen arrin naxdin leh. Teendhada waxaa laga jeexay gudaha. Waxay u muuqatay in dhalinyaradu ay si degdeg ah u jarjareen teendhada iyagoo gudaha ku jira si ay dibadda ugu baxsadaan, iyadoo iridda teendhada ay weli xiran tahay. Maxaa ka cararayeen dhalinyaradani? Raadadka cagaha ee barafka ku yaalay waxay muujinayeen dad ka sii dhaadhacayay buurta. Qaarkood waxay xirnaayeen oo keliya iskaalsho ama sigsaan, qaarna way cagamarnaayeen masaafo dhan 1.5 kiiloomitir. Kadib geed weyn hoostiisa, kooxdii gurmadku waxay heleen haraaga dab yar iyo 2 meyd, waxayna kala ahaayeen Yuri Krivonenko iyo Yuri Doroshenko. Laakiin bal fiiri xaaladda labadan dhalinyaro
waxay xirnaayeen oo keliya dharka loo xirto qaybta hoose ee jirka, waxayna u dhinteen qabow daran. Laamaha geedka ayaa la jebiyey ilaa 5 kiiloomitir dherer ahaan, taas oo muujinaysay inay fuulayeen ama ay isku dayayeen inay wax daawadaan. Laga yaabaa inta u dhaxaysa geedka iyo teendhada waxaa laga helay 3 meyd, waxaana ugu horeeyay Igor Dyatlov oo ahaa hogaamiyaha dhalinyaradan, iyo 2 meyd oo kaleeto. Meydadkani waxay u yaaleen qaab muujinayo inay isku dayayeen inay dib u gurtaan dhanka teendhada. Mid ka mid ah meydadkaasi madaxa ayuu ka jabnaa, inkasta oo uu dilay qabowga daran, haddana cilmi baaristu weli maysan soo saarin xaqiiqada dhabta ah. Intaas oo keliya kuma ekeen. Bishii May ee isla sanadkaasi, markii baraf ka dhalaalay, ayaa 4tii arday ee harsaneed laga dhex helay meeshii uu ka dhalaalay barafka. 4tan qof waxay qabeen dhaawacyo caqliga saliimka ah uu diidayo. Mid ka mid ah madaxa ayaa si xun ugu burburay, 2 kaleeto waxay qabeen jug weyn oo ka soo gaartay dhanka feeraha, lafahoodii ayaa burbursanaa. Dhaawacooda wuxuu u muuqday sidii dad shil baabuur galay camal, balse ma jirin wax nabaro ah ama dhiig ah oo bannaanka uga soo baxay. Arrinta ugu naxdinta badan waxay ahayd in mid ka mid ah ay ka maqnaayeen carabka, indhaha, iyo qayb ka mid ah unugyada wejiga, halka mid ka mid lagu magacaabayay Simon isagana indhaha laga waayay. Sidoo kaleeto, dhar yar oo ay xirnaayeen qaarkood ayaa laga helay raadraac u muuqday mid shucaac ku jira. Dowladdii Midowgii Sofiyeet waxay si degdeg ah ay u xirtay baaritaanka bishii May sanadkii 1959, iyadoo ku soo koobtay jawaab 2 kelmadood ah: ardayda waxaa dishay awood dabiici ah oo aan laga adkaan karin. Ilaa iyo maanta, in ka badan 70 aragtiyadood ayaa laga qoray dhacdadan. Baaritaankii rasmiga ahaa ee dowladda Ruushka sanadkii 2019 iyo sanadkii 2020 waxay sheegeen inay ahayd baraf soo dumay. Dhaawacyadii jabka waxay ku macneeyeen miisaanka barafka iyo inay ku dhaceen meel biyo-mareen ah oo dhagaxaan leh. Markii ay cararayeen, maqnaanshaha carabka iyo indhaha waxaa lagu macneeyay inuu xayawaan cunay ama ay biyaha durdurka burburiyeen. Aragtida infrasound waxay leedahay dabaysha ayaa samaysay dabaq hirar hoose leh oo maskaxda saameeyay, kaas oo dadka geliyay xaalad waali iyo argagax ah. Dad badani ayaa u rumaystay inay ahayd tijaabo military, maxaa yeelay koox kale oo buurta ku sugnayd ayaa sheegtay inay arkeen kubbado iftiimayo habeenkaas. Shucaaca dharka wuxuu sii kordhiyey shakiga hubka qarsoon. Gabagabadii, dhacdadii Dyatlov waa mid na xasuusinaysa awoodda dabiiciga ah iyo sida bini'aadamku u yahay mid aad u daciif ah. Sheekadani waxay leedahay sir aan weligeed jawaab buuxda loo helin. Daawade, maxaad u malaynaysaa adiga inuu ahaa sababta dhabta ah ee geysatay khasaaraha intaas le'eg? Ma xaalad dabiici ba, mise waa sir qaran oo tijaabo ciidan ah oo ilaa maanta la qarinayo? Fikirkaada iyo falanqayntaada noogu reeb qaybta hoose ee komentiyada. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan ha iloobin inaad like saartid, subscribe na tirahdid channelka si aad u hesho muuqaalada, taariikhaha iyo dhacdooyinka aynu soo gudbin doono. Mahadsanidin.